السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقالقة سو دواذا وانيقو ولاشينا كوين دنيا جانل كيغو كسو دواذا أصحابتي دقالقة ميرو البوتشوكتين وحان إذي رجينا يا عافي ما تقاب فرحات إن شاء الله maanta halkan waxaan ku sameysanay Sunday pizza maanta waa iska Sunday ilmaha waxa loo sameeyay pizza maadaama magaalada ay xiran tahay oo sidii hore ahayn meelihii furfuran xitaa si dhaqsi loo xiro waqti fiican aan ku soo qaadan karin cabsi iska jirto ilaa cudurkan naga yasiro wali cudurkii muusan dhamaanin sidii hore ma aha soo pizza ana sameystay guriga ku hagaajiyay ila daawada waxaan ka sameeyay waa ka faa'iidi doontiin insha Allah asxaabteeda qaaliga biizahayga waxaan ka sameystay intaan sheen meesha ii taalo soo waa biisa iska fudud guriga ku sameysan kartid ilmaha siisan kartid adiga naftaada sidoo kale waxa waay maadaama hadda meelihii la aadi jiray wali si fiican xuriyad loo haysanin cabsina iska jirto soo halaga faa'iideysto inta ila midka oo aad u jecel biizaha ilmaha loogu faa'iideeyo soo waxaan halka ku istaa baaquligaas yar waxa igu jirto sokor qiyaas iskaga soo shubtay laakiin ma wada dhameyn dooni sidoo kale leebata heesta ama fixiso qamiir qof walba sida uu yaqaano cusbo olive oil iyo kiilo bur soo hadda isku geysanaya ila daawada intaas shay bas isku dari doona laakiin qiyaas la isticmaala ma wada dhameynay sokorto waxa way badan tahay sokor yar la ku darsan rabaa si ay jilaac iga dhigto iyo qamiirkaas pizza ort sideeda buu waa wax iska fudud oo sahal ma dhib badno marka intaas shay bas isku darsanaya idinkana waa ka faa'iidi doontiin asxaabteeda intii taqaan way taqaan intii aqoonin ka faa'iideysataa leeyahay meel walba joogtid waa waxa guriga ku sameysan kartid sokortaada waxaan ku shubanayaa wax yar bisan ku shubi doonaa ma wada dhameynay hal qaado buuxdo qaadada isticmaala qaadada raashinka qaadada weyn waaye tan yar ma aha soo hal qaado iyo haafan ku shubtay oo sokor kale kuma daray jilaac yar aan ka rabaa inay iiga dhigto maadaama pizza ukun lagu darin sidoo kale waxaan ku darsanayaa cusbo qaadada waxaan ku haystaa oo meesha cusbo yar aan ku shubtay sidoo kale qamiirkii aan ku darsanayaa qamiirka qaado yar iigu jirto laakiin qaadaas aad u yartaa qaadada weyn aan rabaa inaan ku cabirto soo zaaidna uma buuxinay 3 qaadaan ku shubi doonaa asxaabteyda hadda qaadadii u horeysa ku shubtay qaada labaad iyo qaada saddexaad marka aniga zaaid uma buuxin haddaad adiga zaaid u buuxinaysid waxa 2 qaad way kugu filan tahay intaas waxaan ku darsanayaa oo idinka ilaaway biyo kulul ku dari doonaa waan ilaaway meesha ma soo dhiganin tarmuuskan ka soo shubanayaa karaali noqda soo waxaa ku darsanaysaa hal koob oo buuxo oo biyo kulul aniga haddeer waxaan ku darsanayaa hal koob oo biyo kulul waaye kulul zaaidna maaha laakiin qandac way ka yar kulul yihiin waa sida caanaha lagu qasaayo kale koobkaas ku darsanaya marka asxaabteeda idinkana qiyaasta qasanaysiin ay ku xiran tahay hadii wax badan qasanaysid 2 koob isticmaale hadii wax yar qasanaysidna ka yar isticmaalaysa marka qiyaasta adiga kugu xiran tahay sidoo kale aan hadda kiilada waxbaan ka reebi doonaa burka ma wada dhameynay kiilada wax yar aan iska celin doonaa sida waxaan isticmaalaa qiyaas ahaan nus kiilo iyo bar nus kiilo iyo rubac isticmaali doonaa rubac kala camal waa celin doonaa marka asxaabteyda biyo kulula qaadada saas ugu dhaqaajinaya waa ina 2 minute camal si fiican isku dhaxgelisaa qamiirka hadhow waxa uu ku soo qamiiraya si fiican biizana waxa si dhaqsi isku ka dhaxgalaysaa biyo kulula ku qastid mid kale biisaha lagu ma qaso caano waxa lagu qasaa biyo kulula asxaabteyda sidaas ula socda wax ukunna lagu ma daro markii la qasaayo sokor yar oo meel dheer lagu daraa wax kale lagu ma daro sababta hadhow testiga waxa kor kaga dari doontid waxay noqonayaan wax dhadhanaan marka ukun lagu ma daraayo si jilaac yar kaaga dhigto bis loogu darsadaa sokorta hadda waxaan ku darsanayaa olive oil ka qaadada la ku cabiranaya waxaan ku darsanayaa hal qaado oo buuxdo iyo qaado kale aan ku darsanayaa marka 2 qaado waaye 2 qaado olive oil aan ku darsanayaa sidaas isku sii dhaxgelin kadibna burkayga ku soo shubanaya asxaabteyda saas ula socda burka korkaga shubi doonaa karaali noqdo asxaabteeda kaamirada iga dhaqaaqday sababtoo waxa waay burka inta furanay kaamirada iyo jukiska siiyay
marka asxaabteyda karaali noqda. hadeer burki waan kusoo shubtay. waa inay biizahagu jilic tahay. biizaha haddii ay kaa adkaato hadhow dambe way kaa xumaanaysaa, adeegay kaa noqon. marka biizaha waa inay ka jilicsan tahay sida rootigii oo kale. hadeer waa jilic saa aniga u qasi doono, saa u jeedin hadeer waa aad u jilicsan tahay. wax yar oo buraan kor kaga shubi doonaa saysa ii qabsan. kadibna inta kale soo harta waxaa u isticmaalayaa inta xashaayo saliid u isticmaali doonaa, saliid olive oil wax yar ku darsanayaa. saliid alla saliida heli kartid waa ku darsan kartaa, kaliya ma aha inaa isticmaalaysid saliida oo olivada. saliid cadeed waa isticmaali kartaa, saliid kale daayisatid oo coconut oil waa isticmaali kartaa, dhib male. laakiin aniga hadda olive oil aan isticmaalayaa. olive oil ugu fiican biizaha in lagu daro markii aad qasiisid. qof walba mid uu heli karana ha isticmaalo, isdhib ma jiro. hadeer way igu dhegdhegay aad u jilicsan tahay. bur yaraan kor kaga shubay si aysan ii qabsan ama weelka ugu dhegdhegin. kadib saliid yaraan kor kaga dari doonaa. si fiican u xashay, markaan waa inaa si fiican u xashtaa. si fiican u xashay waa isdhexgelinaysaa. kadib waxaa waaye saliida si yaraan oo u isticmaalaa, haddii dhegdheg aan ka dareemana waan dhigi doonaa inta yar ay soo qamiirto. hadeer saliid yaraan ku darsanayaa, weli waa jileec, way igu dhegdhegaysaa. baaquligana saysan iiga qabsanin. asxaabteeda qaaliga markaa si fiican u xashida dhow biisadaada si qurux badan ay kugu soo baxaysaa. biyaha kululna ha moogaanina, jileec bay idinkaga dhigayaan, qasitaanka sahal uu idin noqonayaa. asxaabteeda sidaas le u xashaa, waa isdhexgelinayaa. kadibna waxaa waaye waa dhigayaa. waxaan sugayaa 30 daqiiqo intaa sii karsanayo sooski oo suugadii iyo karsanaya. biiza kor ka marin lahaa, sooska samaysanaya. iyo waxaan kaloo karin doonaa chickentii kor kaga shuban lahaa. iyo waxaan sii jarjaranaya fruit alla fruitkaan rabo inaan u isticmaalo iyo wixii kaloo kor kaga dardari lahaa dhan waa sii diyaarsanayaa. kadib waan usoo noqonayaa 30 daqiiqo kadib. ilaa intaasna waa iisii qamiiraysaa. asxaabteeda sidaas ula socda. hadeer waa diyaar, waan u daboolayaa. kadib dhinaca kale aadi doonaa. asxaabteeda waa kasoo tagay, biizi waa iska dabooshay. waxaan halkan kusoo jarjartay 2 xabo oo tomaato ah ama yaanyo ah iyo 1 xabo basal ah. basashu waa basal yar aan hadda soo jarjartay, iyo 2 xabo barbarooni oo 2 nooc kala ah, mid waa jaalo midna waa guduud. labadaas nooc barbarooniga isticmaalaya. waa xabad weyn iyo xabad weyn dhexdan ka kala jaray. sidoo kale yaanyada waa soo jarjaray iyo basashi yaanyada waxaa waaye gooni aa loo bixinayaa, kuwan kalena gooni aa loo bixinayaa, iskuma dari dooni. yaanyada iyo basashu waa soo shiilaa, waa soo shiidayaa horta koow. markaan shiido kadib dabka saaraya, cusbo yar iyo biyo yar bas aan ku daraa. intaas kusoo karin doonaa. barbarooniga hadeer laguma daraayo, gadaala looga dari doonaa, lamana soo karinayo. barbaroonigeena gooniyuu noogu ooli doonaa. jikinta halkan ku haysto waa jikin sida dheer ah usoo jarjartay. waxaa iyadana waxaan ku qasi doonaa xawaajiyaal iyo waxaan ku darayaa xawaaj, huruud, wixii haysatid ku darsan kartaa oo masala ah iyo kabsar. kadib waan soo 5 minutes sugayaa ama 5 daqiiqo sugaa. kadib waxaa waaye waa karinaa, biyo la ku karin doonaa, iyadana saliid kuma daraayi. biiza hadda furtay waxaa waaye barkaan way soo dhowdahay. inta wax ka karsanayo way soo qamiireen insha Allah. waa isku soo noqon doona. barbarooniyaasha gadaal ugu soo daraaya, ma karinaay mana ku dari doono waxa aan shiidaayo. sidaas ula socda. hadda waxaan karsanaa jikinta iyo yaanyadii aan soo shiidi doono hadduu alla idmo. kadib waa isku soo noqonaynaa. asxaabteeda waa kaas biizii saasay usoo qamiirtay. sidoo kalena waxaa waaye waan soo samaystay sooskii, yaanyadii kasoo sameeyey, basasha isku shiiday. inta waxaan kusoo jarjartay fruit, cananaasa soo jarjartay iyo barbarooniyaasha labada nooc ahaa. waxaan kaloo hadkan igu jirto jikintii aan soo kariyay iyo saxankii aan biiza ku gelin lahaa. saxankaan ku gelinayo biiza 2 xabaan ka samaysan doonaa. 1 xaba idin la wadaaga, xabada kalena waxaa waaye gadaala ka samaysanaya maadaama mid kale hadda bedel ii oolin. asxaabteeda sidaas ula socda. halkan waxaa waaye sooskan aad u fiican yahay. mid baa jiro asagoo diyaarsan la gado, laakiin ka adi samaysanaysid wax ka tasti fiican male dhadhan ahaan. waan waxaa hubtida ka samaysatay. mara idin la wadaagi doonaa asagana anigoo samayn doono hadduu alla idmo. waa idin soo gelinaya anigoo samaynayo. biizaan saasay jileec u tahay, waa inay saas jileec u ahaataa biizahaaga. asxaabteedu waa soo fidinayaa. biizaha saxankan soo saaraya, isku soo noqonaynaa insha Allah.
chicken tea iyo waxaan markaa ku dardarayaan waa idin tusi doonaa hadduu alle idmo maray waqtiga inuu idinku sii dheeraado sida ula socda saxankan soo saaranaya kadib waa isku soo laabaneynaa hadduu alle idmo wax kale kuma soo daraayo inta kale markaa ku daraayo waa idinla wadaagaya sida ula socda asxaabteyda waa kan saxankiyaa soo saartay waxay jileec gacanta la ku fifidiyey laba u qaybiyey qayb ka mid ah waaye qaybtan tan kale gadaalaan ka sameyn doonaa markaa intaan waxaa waa barbarooniyaashii iyo cananaaskii waaye labada nooc barbarooni guduudkii jaalihii sidoo kale waxaa waa mozzarella cheese kor kaga shubi lahaa waa biizaha waa soo xoqay asna waa diyaar waa biizii aan soo fidiyey burki saxankaa soo saaray iyo sooskii waaye wax meesha iigu jiro sidoo kalena chicken tea inta iigu jirto chicken wax saliid kuma karin biyo bisan ku kariyay marka intaas hadeer bilaabaya shaqada ugu horeyn burka waan soo fidiyay marka hadda bilaabanaysaa wixii kale ku dardari lahaa step 1 waaye halkan waxa waaye buraashkiya ku haysta iyo saliid olive oil wax yar saliida kor ka marin doona qofkii heli karo waa khayr buraash qofka heli karin qaadadiisa uu isticmaali karaa waxba yaa la isku dhibin sidaas la ku marsanaa wax yar marmarinaya oo saliid kama badinaay maadaama saliid olive hore ugu qasay hadda wax yar kor ka soo marinaa bas kama badin dooni saliid waan soo mariyay markaan hadeer marka waxaa sameynayaa fargeetada sidaas ugu riixriixaysaa dhinac waliba meel waliba oo kusoo wareejinaysaa sababta saas loo sameynayo waxay tahay biizaha inuu dhadhanka gudaha u galo oo sooska kor kaga shubto waxaa gudaha inuu galo maadaama uu yahay bur waxaan kor kaliya uusan ka saarnayn oo gudaha u galo tomaatadii iyo wixii aad soo karsatay ama tomaatada diyaarsan isticmaal haddii aadan saan sameynin gudaha uma sii galayso dhadhan fiican kuma yeelanayso marka sidaas darteed la qaado saan fargeetada saan loogu sameynaya waan wax iska sahal amaba dhib badnaba maba dhib badno sidaas ku soo wareejinaya dhinac waliba meel waliba waan kaga soo sameynaya wax yar gudaha la ugu riixay si oo gudaha hadhow kugu galo testigii iyo wixii oo dhan dhadhan fiican ay u yeelato marka asxaabteyda waa soo dhameeyay meel waliba sidaasaan ka soo sameeyay step by step waa idin tusay waxba kama aanan jarin hadeer waxaan marinayaa tomaatadii ama waxaa waay sooskii qof waliba waxaa waay miduu haysto isticmaali karaa aniga pizza waxaan jeclahay inaad soos badan ku daro pizza soos badan ku darsanaa ama suugo badan kor kaga shubnaa ilmana way cunayaan dhadhan fiican ay marka hadhow u yeeli doontaa hadaadan jecleen oo suugada ay ku dhibeyso waa iska yareyn kartaa laakiin anaga suugo badan ku darsanaa testi fiican ay ku sameeyay hadhow dhadhan fiican ilmaan way ku cuni karaan marka saas anaga ugu darsanaa wax badan waana la jecel yahay guriga in oo soos fiican lagu daro pizza daysan soos fiican lahayn waxa dhadhan ma lahaanayso hadhow marka sidaas oo sooska ugu soo wadaya dhinac waliba waa isgaargaarsiinaya asxaabteeda saas ula socda waa isla wada simi doonaa waa isla soo simay sidaas dhinac waliba ugu soo mariyay kadib waxa step 2 waxa noo chicken inaan kor kaga shubno chicken kor kaga shubeena oo soo kariyay biyo ku soo kariyay saliid wax dhan kuma darin biyo yar bisan ku daray oo ku soo kariyay xawaajiyaal ku daray iyo kabsar kaliya sidaas fardis camalan ka dhigaya meel walba waan kaga shubaa chicken saas la ku soo wadaya awalba sida dheer u soo jarjartay intaana karin ka hor yar yar kama dhigin zaid marka sidaas la ku soo wadaya hadeer chicken fiican aan ku daray anaga chicken taan jecelnahay qof walba dooqiisa asagay ku xirantaa qofkii roo fish uu ka dhigan karaa laakiin anaga mid oo chicken taan jecelnahay sidoo kale waxaan ku darsanayaa hadeer fruitka aan jarjarto u diyaarsaday wuxuu ahaa cananaas qof walba fruitku heli karo ku darsan karaa hadaadan fruit heli karin waxba dhibaato male olive oil oo sideed inta jarjaratid waa ku darsan kartaa
qof waliba waxaa waaye wixii markaas uu heli karo, dhibaato ma jirto, yaa laisdhibin waaye, ma fahmaysiin. marka asxaabta si fudud ha looga faa'iideysto insha allah. qof walba wuxuu gurigiisa ka heli karo gurigiisa u yaal ha u isticmaalo. cananaaskii dhinac waliba waan ka dhigay gudaha ugu sii riixayaa si uu gudaha ugu galo. cananaaska saasa ugu soo dhameeyay, intaas waa okay qiyaas ahaan. hadeer waxaan kor ka saarayaa barbarooniyaashii kala nooc ahaa, midka jaalaha iyo midka guduudan labadaba. asna gudaha xoogo ugu riixaya barbarooniga, wax yar gudaha ugu riixaya, sababta kor waxaan rabaa inaan kaga shubo jiis. isbayskan uu iska yaraadayba maadaama jikintiina aan ku shubay oona ku shubay cananaaski. saxankana wuu yar yahay, dhexdiisa wax saas ma qaado, laakiin wareeg ahaan balaca uu ka fiican yahay oo size-kii biizaha waaye. sidaas u isticmaalaya, ma dhexda wax badan kama qaado. biizi iyo hadeer aana karinin oo jiis ku darin oo buuxaa, wax yar ka dhiman wuu buuxsamay. soo haddii aan hadhow soo kariyana wuu buuxsami doonaa, laakiin size-ku waa biizada caadiga size-keeda, saxanka yar. hadeer waxaa barbarooniyaashii labada noocba waan wada saaray, waa diyaar. waxaa ii harsan kaliya jiiska inaan ku shubo. jiiskan kor kaga shubayaa. jiiska mar horaa diyaarsaday, waa soo xoqay, wuu ii diyaarsanaa, marka waan ku shubaa kaliya. sidaas ugu shubayaa dhinac waliba. jiiska waan ku wada shubay. ilmaan siineenaa jiis badan aan jecelnahay, marka saasa jiis badan ugu darsanaya. waa iska yareyn kartaa haddii aadan rabin jiiska badan. biizana jiiska jiid fiican uu ka dhigaa, maasha allah. marka asxaabteyda hadeer waxaan sii shidanayaa ovenka shidana ama foornada. foornadan waxaa lagu duwaa 180 geysanaysaa. markay soo kulaato 180 lagu duwaa, dab badan laguma duwo sida rootigii oo kala waaye. soo marka waxaad sugi doontaa 15 ilaa 20 daqiiqo kadib biizaha oo diyaara isku soo noqonayna asxaabteyda qaaliga ah. maasha allah tabaarakallah. biizeena quruxda badan sidaan inoogu soo baxday. markay bislaatay jiis badana kor kaga shubay. jiiskii waa aragtiin siduu kusoo baxay iyo wax oo dhan, jikintii cananaaskii kulli waxaa markaan waa biseel sidaas quruxda badan ay kusoo baxday. waxaan kor kaga shubay kaliya kajab yara ilmaha kor ugu shubay, ilmaha siin rabaa. soo waa ka diyaarka ah, inaba caadi ma aha. testigeeda test aad u fiican waaye, ama dhadhan ahaan dhadhan aad u fiican waaye. asxaabteeda qaaliga ah waa soo jaraya ila daawada. raali noqda kaamirada waa ani keligeyga inaan idin tusa isku dayaa. asxaabteeda ka raali noqda, aniga keligeyga waaye, waa idin tusi waayey kaamiradii. soo waa kas markaan soo jaray, jiid waaye, aaday u jiidmaysaa, jiis badanay leedahay maasha allah. aniga idinka hubo, laakiinse kaamirada waa igu aadi weysay. waxaa waaye hal gacan kaamiradan ku hayay, hal gacanna waxaa waaye waa ku jiraay, laakiin way ii noqon weysay inaan idin duubo. markaan soo jaray saxanka soo saaraa idin tusayaa. maasha allah sidaas waaye. dhexdeedana sidoo kale aaday jileec u tahay, jiis badan ay leedahay, wayna kulushahay. kule waa kaas jiiskiisaasa ku dareemi kartiin asxaabteyda qaaliga ah. laga faa'iideysto insha allah. ka faa'iideysi wacan. soo dhawaada, subscribe ii saara channelka waa channelkiina maasha allah. sidaa iyo